ayagoo doomankii malayga ay saaran yihiin oo malaygii barafaysan yahay oo badda shay tubax shay ku maqnaayeen shay tubax bay ku maqnaayeen dadkii markii malaygeeday keensadeen in la yidhi shalay ma la dejinayo wax malay habal yaabal dejinayo amarkaana wuxuu ka yimid ay nagu dhaheen madaxda sare ku yimid markaan ma dhici karto malaygeena la degnana xabaday bilaabeen gabar waxay ku dhufteen naxsay ku dhufteen isbitaalkay taagan dhibaato malay saacadan mid kalena waa ku dhufteen xabaday naga hor keeneen saakan ku laabanay waa kana wiilkaas gabadhiina way jiftaa mid kalena sidoo kale ay dhiig ku qaacayaan saakana lagu yimid ugu dambeysay waxay nagu yiri ninkii taliyaha ahaa waxay ka dambeeyay arrinto ka dambeeya madaxda sare ka dambeeyay yiri taliyaha magaciisa madaxmadkiisa saaka la soo diray xasan cadow namarka ii geystay taliyaha xasan cadow namarka ii geystay madaxweynaha soo diru yiri waa ninkii taliyaha ciidanka sargaal weeye sargaalka ciidanka wada xasan cadow dhibka ii geystay dhibka nagu yaala iyo dhibaatooyinka nagu yaala anuu dadkii masaakiinta ahaa oo badda ka shaqaysan jiray oo badlacda ahaa ayaan nahay sidaa darteed dad baa noo yimid qoryo wata oo dhahaya madaxweynaha Soomaaliya na soo diray farmaajo ya xasan khayre waxay yiraahdeen kawaanka la xiro kawaanka naag baa gadatay oo nagu agdhaganay la yiri anuu xabad baa saan ugu galay dadkii waa wada dhaawac aniga feeraha waa u jeedin wax iga yaala shaqadeena dhimaad habsan noqotay naag baa waxay tiri kawaanka dhan waxaan ka dhiganayaa baakin baabuur kawaanka Cabdicasiis waaye si oo malayga sidaa darteed idaacadda waa noo jeedin waxaan codsanaynaa madaxweynaha iyo xasan cali khayre dadkan ay nagu soo hogaaminayaan in ilaahay intay ka baqaan ay naga daayaan ayaga waddanka mas'uulka aniga maxamed maxamuud cali yaa leeyahay naanistayda fargeeta leeyahay 46 sano ka shaqeeyo kawaanka malayga ayadoo geel lagu xiraayo kawaanka liido ma garatay waxa weeye waxa aan hadda aragnay ma arkin dawladaan soo aragnay wax walbaan soo aragnay annagoo waaba noo dhisayeen oo guri ka dhisnayn oo qaboojiye oo lin oo iskaashata ka jirin ayaan shaqeynayna kawaanka ma dhul dawla waaye dhul shacab waa shacabka garabka lagu dhisay iska wuxuu qabsan ku dhisnay waa garataan u malaynaya qodaydaan uga dhisay waxaan ka soo qaadayna jamal nuurta meel ila dhagaxda ma garatay biyahana ceel dhanaanahan ka dhaansanayna waxa weeye walaalkeeyow annaga dhibaatada dawladda aan ku qabno shalax badaan ugula garaaca dooyihii waa la duleelay ninkii malay googoynaayo waxa waa qoraya qalka laga galsha xabadaa lagu dhiftay annagu dhibaatadan aragnay ma arkin farmaajo 6 habeen iyo 6 maalmood aan soo jeednay oon lahayn macnaha kor Allah ka dhigo maanta hoos Allah ka dhigaan leena ma garatay waxaan rabnaa macnaha hadii dawlad ka jirto oo wadanka cadaalad ka jirto oo daacad ay ka jirto shacabkan xaqayna iyo dhiigayna inaan helno iyo shaqadayna waxa weeye in habar macnaha hotel dhisata ee faqsi meesha ku hayso ee gabar yaro oo inta la eg oo gabar 16 jir in lagu gado annaga kawaanka noogala saaro diinta islaamkuna ma qabto midda kootaliguna ma qabto waxaan codsanaynaa intaan waa baabeen waxay u baabeen ayadoo canshuur nagula baabeenayo oo xabada malayga 100 kun keenana leeyahay canshuura hadii kale bustooladan ama qorqaan madaxda ka garaacayna aan noogula daray xabad dad waa dhintay dadna dhaawac waay waxaan codsanaynaa dawladda haday dawladayna tahay oo dawlad sharaf la tahay in shacabka wax loo qabto maxaana lagu haystaana waxa la yiri meesha waxa laga dhigaa meel dalxiis ah oo lagu tunto lagu ciyaaro annagana dad masaakiinana bariisa ka raysan ilmo masaakiinana meesha ku haysana waxaan ku haysanaa dawladda Soomaaliya federaalka siiba farmaajo iyo khayre inay si degdeg ah arrimaha iyagu soo farageliyaan haddii kale inaan lagu laaysiin loo laayaan haddana u dhamaano ayaa naga go'aano noocad laamigaanu taagana waxa naga cad in lagu dhameeyaan ku dhamaano dawladda waxa ka codsanaynaa ilmaheena nolosheena intaba inay xafido ilaah baa xafidi karo kasoko amarkeena ayada gacanta ku haaso annaga shacab adaana amarkeena dawladda iska leh dawladda ma ka soo horjeedni waxa diyaar lanahay in loo taliyo waxa diyaar lanahay in loo taliyo waxa diyaar lanahay in dawladda ay noo taliso war qoorteena idinka haasiine noo taliya dawladda qoorteena idinka haasiine noo taliya xadgudub ma wadno wax dil ma rabno wax dhaawac ma wadno annaga waxa diyaar u nahay in loo taliyo dawladdeena ha noo taliso wadada annaga aan leenahay hana siiso maanta kula loo waa inta baagamuundanahay